السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال soo dhawaada waxaan idin wadaagi doonaa xaaladaha guud ee awdal iyo salal dagaal ka dhacay deegaanka hulka ee degmada Lughaye odayaasha beesha Ciise oo mar kale adkeeyay mowqifkooda baaqna u diray ciidanka maamulka Somaliland sidoo kale waxaad maqli doontaan xaaladaha guud ee awdal iyo salal soo dhawaada haddii aad inagu cusubtahay channelka subscribe inoo saar muuqaalka inoo la garay asxaabtaada la wadaag aragtidaada inoogu soo gudbi qaybta faallada mahadsanidin xaaladaha gobolada awdal iyo salal ayaa weli ah mid kacsan kadib dagaallo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday deegaano ka tirsan gobolka gaar ahaan aagga deegaanka hulka ee degmada Lughaye xiisadan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha bulshada deegaanka iyadoo wararka la helayo ay tilmaamayaan barakac cabsi iyo xaalad bini'aadanimo oo sii xumaanaysa dagaal culus ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka hulka kaas oo u dhaxeeyay ciidamada maamulka Somaliland iyo maleeshiyada deegaanka ah oo ka tirsan beesha Ciise dagaalkaasi ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo tirada rasmiga ah ee khasaaraha wali si buuxda loo xaqiijin goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalka uu si degdeg ah ku fiday iyadoo rasaas culus iyo hub kala duwan la isku adeegsaday waxa sidoo kale la soo sheegayaa in dagaalku uu saameeyay dadka rayidka ah gaar ahaan xoolo dhaqatada iyo qoysaska ku nool miyiga odayaasha dhaqanka ee beesha Ciise ayaa si kulul uga hadlay dhacdooyinka ka dhacay deegaanka hulka iyagoo ku tilmaamay habdhaqanka ciidanka maamulka Somaliland mid aan la jeclaysan karin isla markaana aan loo dulqaadan karin waxay sheegeen in ciidamada ay ku kaceen falal ay ka mid yihiin caburin iyo handadaad loo geystay shacabka deegaanka dhaqdhaqaaqyo military oo aan loo marin wada hadal iyo falal sababay barakac iyo burbur hantiyeed odayaashu waxay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo colaadda isla markaana xal nabadeed lagu dhameeyo khilaafka taagan waxay sidoo kale ugu baaqeen maamulka Somaliland in uu ixtiraamo xuquuqda dadka deegaanka waxaanu leenahay haddaan nahay anagu qabiilka Ciise kuwii la yidhi baan hayn lama arag arlada dawladda dul oo muursada ee bulxar awaaraha ka dhacay ama jaaweeyaan kuwii la yidhi baan dawladda rogay dawladdan kuwii rogay baan maanta waan ogolay dawladda Soomaaliland anagoo waxba ku haysan wax maskab la yiraahdo ku haysan دبع 25 baa la naga siiyaa dawladda Soomaaliland waa wasiir iyo bad yaa la naga siiyaa dawladda dhan ee Soomaaliland ay taataal kuwana naga la noo adeegsada adeegayay ku filan yihiin kuwa maaha wax loogu filan anagoo sidaa haddana ay siinay dawladda Soomaaliland oo ishidahay dawr iyo soo sano ishi hay aabo ilaahay waxaa dhacday dadkaygi sidaa ahaa annagoo dalkayagii la sheegtay degmooyinkaan u dhalanay Saylac iyo Lughaye weligayaba ilaalayaal ku ahaa oo degta ku sida jirnay oo hablaha iyagu dhali jireen oo naaskayga jiqi jiray annagu laakiinse jiqi jiray laakiinse annagu aan hoosta ku haysan jirnay oo weligayaba magan loo ahaa jiray amba dad aan soo korsanay ahaa amba laba qabiilo walaala laakiinse kala madax rooloo ismaamulaan hayn kii sidaa ahaa ayaa loo sheegtay Lughaye iyo Saylac أنا له وحوك عينكاس دولة صدق السنة الصومال جوكت أيوم ما حلا توس عرب الحشة أنت وأيده كلو تلنجري يالكو سماسون يجي بورسي وكو هنجري حشة كامل سكت دفاعي على دولة دوح عذر وماله على الصومال لا يبل هوسجو ولي جيبه والو هيالري أنا بروح بكويس كيف على دبعين النوبة جيو وأنا بضايلنا وحبة كبجتو وقبيل لو بجينا قبيل لو بجينا هذا لو بجينا محمد سيدا يدي لغو لينا والكوي جيل اللي جوغا وشي عاقد يا بردان سيتي دوحيada mara khuriya gaas jooga diinta laga dhigay way jeefaanimaka waaki jeel la joogay sheeg jeefada halka joogto jeefada bisajaf hor ka joogta dul raasay kuwaasa yaa maxaa lagu leeyahay kuwa warduul loo bajinayaan hadday dawladda jirtana
sida ugu dhaqsa badan dadkii ay naga laysay iyo maatida iyadii aan jeedhay waa inaan masabkeygii helno hadda weynahayn dee wixii alla loo kala guuyo dowladda Somaliland oo marka hore Cabdiraxmaan Ciro marka hore uguma uu talagalay baarlamaanka goboladan inuu nabad ka rido uu talagalay Cabdiraxmaan Ciro waayo hadduu inuu ka rido uu talagalay dadka ay beelahaas haya ka dhaxab u soo diri lahaa uma soo dirin beelihiisa iyo in kamida intii madaafaqada u xun iyo dabka u xun kicisay uu soo diray dabka u xun intii soo kicisay iyo soo diray hadduu intii soo diray intiina waxay noo soo dirtay dadan garaweynay inuu jabhadii aan dagaalaynaba uu yahay iyo inuu dawladii yahay laakiin shaarkii dawladda xulad bal noo soo diray haddina noo soo dirayna cagta la mariyay dadka cagta la mariyay meel ay jabhadi joogto ma ahayn jabhadna ma ahayn dadkii magaalada ee shicibka ahaa iyo cagta la mariyay oo hubka kiisa culus loo adeegsaday hubka kiisa culus baa loo adeegsaday waliba ka yar iyo kiisa culus baa loo adeegsaday ka gaariyaasha saaran kuwa geela la jooga ee barada dhulka wadooyinka maraya waa la qabto iyagana digita laga dhigo waa dhaawac dadkaasi dad jabhada ma ahayn hadalkii dawladda iyo nabadii ay tiri waan qaadanay hubka waan dhignay annagu halka iska joognaan loo yimiday maatidaas loo dulmaray halka shalay dib foolxun ayuu dadka maryaha dawladda sita ayuu loo geystay annagu garan mayno kii jabhada hay uu maryahan u soo galiyo inay tahay wali waa kala garan laanahay iyo waxaan kala iskugu geynay inay kii caadigii oo maryahan loo soo galiyay ay tahay ninkan sayno maryahan loo soo galiyo inay tahay baan ayaan imaka iskugu geynay waayo hadalku wuxuu ahaa guryaha la dhigo waxa guriyina waa la dhigay wax guriga haysana uma yimin wax guri ku ridana uma yimin wax guri haysana uma yimin waxay ugu tala galeen ayay hayd waxa dhubtaasi ka dhacday annagu waxaan u malaynay in kii uu samiiska noogu soo galiyo oo nagu adeegsaday baan iyaan qabnaa dawladda Somaliland wax jira haday tahay oo taa hortii horaba in nabad ka rida ugu tala gashay ay lahayn gasabkeygii si toos ah nagu timaado aan asiis xiisadaha ka taagan awdal iyo salal waxay si toos ah u saameysay nolosha shacabka qoysas badan ayaa ka barakacay deegaanadooda adeegyada aasaasiga ah sida biyaha iyo caafimaadka ayaa hakad galay ganacsiga iyo isu socodka ayaa si weyn hoos ugu dhacay dadka deegaanka ayaa muujinaya cabsi joogto ah iyagoo ka walaacsan in dagaaladu sii socdaan wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo gobolada awdal iyo salal ayaa sheegaya in weli ay jirto xiisad colaadeed inkastoo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xaaladda waxa la filayaa in odayaal iyo waxgarad ay bilaabaan wada hadallo in maamulka Somaliland ay qaado tallaabooyin lagu dejinayo xaaladda iyo in beesha caalamka iyo hay'adaha nabadda ay ku baaqaan xasilooni si kastaba ha ahaatee xaaladdu weli waa mid aan deganayn waxaana jirta cabsi laga qabo in dagaallo kale ay ka qarxaan haddii aan xal degdega la helin ugu dambayntiina xaaladda ka taagan gobolada awdal iyo salal gaar ahaan dagaalkii ka dhacay deegaanka hulka ee degmada Lughaye ayaa muujinaya baahida degdega ah ee loo qabo xal nabadeed cabashada odayaasha beesha Ciise iyo saameynta xoogan ee ay colaadda ku yeelatay shacabka ayaa adkeynaysa muhiimadda ay leedahay in dhinacyada ka shaqeeyaan wada hadal iyo is-afgarad haddii aan si dhaqso leh xal loo helin xiisadana loo xallin waxa laga cabsi qabaa in ay sii ballaarato islamarkaana ay keento dhibaatooyin bini'aadanimo oo hor leh guud ahaan saaxiibayaal warbixinteennii intaa ayaan ku soo koobaynaa waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janalka subscribe inoo saarto muuqaalka inoo laagarayso asxaabtaada la wadaagto aragtidaadana aad inoogu soo gudbisa qaybta faallada mahadsanidin